okay slide-ka marka waxaa isla arkaynaa noocyada beamka anagoo u fiirinayno materialka ay ka samaysan yihiin okay nooca ugu horeeya marka maxaa la yiraahdaa reinforced concrete beam nooca wuxuu ku samaysan yahay shub bir wato okay waxaa laga sameeyay ku dhahay concrete kaasoo birta dhismaha loo isticmaalo yacni la dhexgeliya ama loo isticmaalo ama loo arrange gareeyo loo nidaamiyey si ay ugu noqoto marka reinforcementiga ama birtii kaabi lahayd shubkeena okay beamka marka wuxuu aad muhiim ugu yahay oo door muhiim u ka qaataa marka la joogo frame structure waxaa la lahaa frame horta waxaa la lahaa beam iyo column okay frame element yaa la lahaa okay oo waxa frameka sameynaa ayaga waa kan waa beam kan waa column haddana kan waa beam hoos haddana column kala u sameynaya so marka frame structureda frameka ah oo sidaas oo kale ah ayaa loo ayuu qayb muhiima ka yahay okay aan sawir isla aragna marka reinforced concrete beamka waa kan aha okay beamskan ayaa la lahaa reinforced concrete beam okay kulligood waa shub okay sidaa ujeedid waa shub ayagoo dhan okay nooca labaad marka waxaa la yidhahdaa steel beam okay beamkan waxaa laga sameeyey steel ama bir ayaa laga sameeyey waxaana la isticmaalaa markii la joogo steel structure okay dhismayaasha steelka ka samaysan so marka sida griderka oo kale bridgeska loo isticmaalaa okay steel beamka inta badan marka waxaa loo isticmaalaa ku dhaha bridgeska waa kan asaaba kuu sheega okay iyo dhismayaasha caadiga ah okay so marka asagana exampleka sida isla aragno waa kuwaanaha noocan aan ujeedno waxaa la lahaa i okay shape-kooda i ah sax wuxuu raba noqon karaa h c hadba ujeedka iyo dhismaha nooca isticmaalaysa ayay ku xiran tahay okay kaasna waxaa la yidhahdaa steel beam nooca saddexaad marka waxaa la yidhahdaa timber beam ayaa la lahaa noocan waxaa laga sameeyey alwaax ayaa laga sameeyey waxaana la isticmaali jiro ku dhahay xilliyadii hore waqtiyadii hore oo casriga aan ahayn cusuurtii hore ayaa la isticmaalay okay sidoo kale marka beamkan waxaa loo isticmaalka beamkan ee dhismaha in loo isticmaalo waxaa lagu dhahay waa la yareeyey macnaha waa laga tego hadda ma awood badna adduunyada hadda waxa waaye in dhismayaal aad u waaweyn baaxad ahaan iyo dhir ahaan in la isticmaalo ayaa la maraa so marka waa laga tegay macnaha noocan environmentyada kala duwanna maba ku habboonaba okay so marka isagana hadda isla aragno waa kan ahaa sidaan alwaax waaba okay beamskan oo dhan waa alwaax okay nooca afraad marka waxaa la yidhahdaa composite beam waa combination of two things okay so marka waa alwaax ama waxa waaye labo iyo wax ka badan oo noocyada beamska aan soo aragnay oo la isticmaalo waa okay ama tusaale ahaan waa kana wuxuu ku yidhi wood iyo steel isticmaalna ama concrete iyo steel isla isticmaalna so marka isagana wuu jiraa noocaas okay waxaan rajeynaa inaan isla fahanay okay